Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fara badan aan soo qaadanay waa very important taasi. Allah mahad iskalo ina makaniye inaan soo gudbina casharadii taxanaha waana Soomaali online training step by step ban usii wadi doona casharadeenii waana very important. Hadda talaabaan sii qaadaynaa waxaan sii maraynaa lesson 93 book ka tirsan silsiladda new concept English of practice and progress aha buuga first gabagabo hal cashar ka haray buuga kale development ilaa iyo 38 cashar ama 38 baan soo diyaarinay inta kalena waan soo wadnaa buuga fluency kaliya noo dhiman waana very important taas. ardayda kala duwan meel walba adduunka ka joogtaan Facebook page-keena fariin waan noogu soo reebi kartaa somalisaronline.blogspot.com ardayda ku cusub liiska magacyada ay iska raadin karaan casharo exam exercise oo iska sii raadin kartaa halka ka degsan kartaa waana very important. ardayda kala duwani meel walba adduunka aad ka joogtaan casharadeeni waxay sii marayaan ardayda qaybaha cilmiga kombiyuutarka imtixaankiini baa socda idinka ardayda kale luqadda Englishka professional Somalisaronline training casharadaasi waxaan sii maraynaa lesson 93 buuga first aha waa gabagabo hal cashar ka haray buuga kale development kasna waa gabagabo idoo cashar fara badan aan ka soo faa'iideysanay casharadan oo taxana waxaan ka helaynaa Somalisaronline training somalisarabatiyo.com waan la soo xiriiri karnaa haddii aan doono ama page-ka ay ku leeyihiin Facebook waa soo geli karnaa idoo cashar fara badan aan ka soo faa'iideysanay halkaas aan la sii maraya waana talaabo inaan u sii qaadno. Okay, casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa a noble gift waa ciwaankeena lesson 93. a noble gift waa hadiyadii karaamada badneed ama waa deeqdii karaamada lahayd oo kale. lesson 93 waa a noble gift hadiyadii karaamada lahayd. Nobel qofka mudanna waa la yiraahdaa. Nobel rich kalna waa la yiraahdaa qofka richka. One of the most famous monuments mid kamid ah taalooyinka ugu caansan ee wala dunida the statue of the liberty taaladii xuriyadda the statue of the liberty taaladii xuriyadda was presented waxa loo diray way oo loo hadiyadeeyay to the United States of America wadanka America. statue haddii aan soo noqdo waa kan qofka ku sawiran yahay sida sayidka oo kale sayid maxamed cabdulla xasan oo kale muqdisho marka ku aragtaan waa tii uu saarnaa faraska waa qofka ku sawiran statue baa loo garanayaa monument taalada laakiin statue waa tan qofka uu sawirkiisu ku yaal marka the statue of liberty taaladii xuriyadda liberty waxay la mid tahay freedom oo kale liberty taaladii xuriyadda was present waxa loo hadiyay to the United States wadanka of America wadanka America 19th century qarnigii 19aad yaa hadiyadeeyay marka by the people of France dadka reer France the great statue taalada weyni which was designed ونقشدي by the sculpture حراقي وينا Augusto Bartoldi لو رجل Augusto Bartoldi took waxay ku qaadatay 10 years 7 sano to complete inuu ku soo dhameystiro the actual figure sawirka dhabta ama muuqaalka dhabta ahi was made waxa laga sameeyay of cover marta supported by lagu kaabayna a mental framework ya frame bira which had been especially si qaas ah constructed ayaa lagu dhisay by the evil ayaa lagu dhisay ninkii ibilaha before ka hor it could be transplanted loo dirin weeye to the United States wadanka United States iyo ummadaha midoobay aside dhinacaya had been to found inay noqotay in loo helo fooyadiyada and a badistal sabad shubana loo dhiso sida tii sayidku saarnaayo kale badistal waa sabad in loo shubo ama shub in loo dhiso had to be built in loo dhisay noqotay oo lagu tijaabiyay macnaha dasay dhinaca juusan loo doortayna was an island waxay ahayd jasiiradda island the interest of New York Harbor dekada New York iridkeeda ahna meesha laga galo Iceland lama dhahay island bal leeyahay esta lama aqrinayo waa unreadable erayada unreadable ka way the interest of New York Harbor iyo halka laga galo dekada New York by 1884 statue taaladii which was waxay ahayd 151 feet dhirahan 151 feet tall dhirkeeda inta ahaa had been erected waa la isku xirxiray in Paris iyadoo lagu tijaabinayo magaalada Paris the following year marka sanadkii xigana
sanadkii xigayna it was taken waxaa loo qaaday to pieces it was taken waxaa loo kala dhigay to pieces xabad xabad ama waslad and sent waxaa loo diray to America dalka America by the end dhamaadka of October 1886 the statue taaladaasi had been put together mar labaad ayaa la isa suray ama la isku xiray again mar labaad and it was official si rasmina presented waxaa loogu diray to the America dalka America to the America people dadka reer America loo diray Bartolini ninkii ahaa ever since then ilaa iyo waaga the great monument taaladii weyneedii has been symbol waxay calaamad u tahay of liberty calaamad xuriyadeed has been a symbol of liberty calaamad xuriyadeed ay u tahay for the millions malaayiinta of people dadka waa vast oo true oo dhaafaya way New York habada ka New York ama galaya to make their homes markay ka dhisanayaan guryahooda in America dalka America bontiskana waa statue taaladaasi oo tan qofku ku sawiraya way president waxa loo hadiyaday USA waa la soo gaabiyay macnaha USA France people dadka reer France oo hadiyaday 19th century qarnigii 19aad designed waxa design garay Bartolini ninkii la oran jiray built a metal frame waxaa laga dhisay frame birax by Eiffel ninkii Eiffel baa ku dhisay special difficulties oo mashaakil gaarka cashirku yeelan kara stress waxay yiraahdaan stress read aqri two sentences labadan sentences alert alert kor u qaado kale alert okay the statue taaladi of liberty xuriyada was presented waxa loo diray from the France from the French people dadka reer France diray oo hadiyad uga dhigay president waxa hadiyaday from the French people dadka reer France it was presented waxaana loo diray way to the United States of America dalka America marka reer America loo hadiyaday reer France loo hadiyaday oo kala way iyadoo 10 fara badan ardaydan ay soo qaateen step by step baan la wada socon doonaa sawirkan waa taaladii uu ku sawirnaa statue-ga ahayd way qofka ku sawirnaa iyadoo 10 fara badan hore aan soo wada faa'iideysanay waa Somali Star Online Training hadba talaabaan sii qaadanaa 10 imtixaanaha ayaa ku guul jirnaa waana muhiim jiddan iyadoo hadba talaabo saan sii qaadanaa halkaas sii mareynaa lesson 94 baan sugu imaan doonaa waana talaabo inaan soo qaadno ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan waa Somali Star Online blogspot.com video exam exercise Facebook page keena Somali Star Online hada soo qortaan page keena fariin waa noogu soo reebi kartaa sida darteed fi amaan Allah wassalaam alaykum